joogeen oo dalkoo dhan joogeen waxa inta la duulay tukaraq loo tago 20 kilomitir u jirta anu ma garan war haddii ciidanka Somaliland aanu heshiino maamulka Somaliland war annaka diyaar waa xuduudka in bixin la tago annaka diyaar waa laakiin haddaanan heshiin oo waxaanu wada leenahay aanan dhisan anagu dagaal shaqo kuma leeyin waayadan World Cup kan daawanaynay kanama World Cup bana looga dhigay ma dagaal ma dagaalana ku shaqulba ku lahayn oo cid naga tala gelin oo aan televisionka waxaanu ka maqlaa war ma gelayno war ilaa aan ka heshiino oo daacadnimo iyo wax dhaba aanu ku heshiino cad oo muran ma doonta ah war dagaal aanu gelinaayo cid aan ugu hiilinayna ma jirto war xaynta yar ee ariga ah ee dadku haystaana war yaan lagu loo farin war xaynta yaan lagu loo farin waroy ruwaayaduhu way iska badan yihiin xaynta qudhadeedu exposure badan bay heshayo maalin walba tiyo 4 riyaad aad ba kala baratay oo midda gees jaban iyo midda barabareel aad baratay yaa marba meel la soo tubaya waroy kuwaana waa u sheegnay war hadday xaalad abuur tahay hadday been tahay hadday saxaafad tahay hadday tahay waxaan jirin oo ruwaayadoo la dhigaya war cidaas waa ku fiican tahay qolyahana waa kaga fiican tahay waxaan anigu oran lahaa war danteena hal lagu soo ururo war wax gaar aanu ka rabnaa ma jirto war khaatumana kama rabto war intanu isku qabiil ma aha war intanu wadanko dhan bay ka kala yimaadeen waxana midaynaya oo ay u socdaan oo nimanka kala doodayana waa waxa guud aan wada leenahay waxaan anigu qabaa hawsha inaynu siyaasadda macruuf la isuma sameeyo war dadkaas waa dad fiican oo gob oo nasab oo taariikh laho dhaqanka ku fiican oo war nimanka waxa halas war waxna la siiyay ma rabno war waxaanu leenahay xaq u leenahay yaan rabnaa dastuurka ay ku dhigantahay shuruuda loo baahay in yaro xog warana war gudida day khaatumo ee markii horena 7 ahayd haddana 4 ku soo ururtay iyo odayaal iyo ismo qabaa'ilka Somaliland ee isaaq war cidaan lahayn khaatumo haddii dadka Sooliya Sanaag iyo Cayn haddayan Somaliland ka mid noqon Somaliland ma jirayso waa waran jiraynin war taa ka socota hadda ceelaf weyn ee nasiib darrada ah yaa uun Hargeysa iyo Burcaan tagi doonta horena way u dhacday 495 horena waa u dhacday haddana halka ku socota war dadkan haddii ay noqon ummad dhan oo isku dhafan oo ilaa sayla ilaa maxay ahayd bixin ilaa meesha la yiraaho arladaas barigaas ergaabo iyo wixii barigeeda war ummadaas oo dhan haddayan mid noqon oo dabaashan hadday cid gooniyi leedahay waxba isumanihin war iyakana waa ku nidhaahnaa war in public iyagu madaxdoodu joogtaan ku nidhaahnaa war waxaanu cidna uga turayna maaha war laakiin hadiiba xaajadeeni meel adag ay gashay war wixii bal sidii loo dhirin lahaa in laga tashado war dadka dhulkan jooga hadday pressure noqoto annaka wada hadalka rabna annaka qadiyadayada iyo waxaanu ka rabno annaka noocadna waray pressure bay ku noqonaysa war inta ismada habar jeclo ay Muuse Biixi u tagayaan ee oranayaan haddaadan arinta khaatumo dhamaynin haddaan dadka Sooliya Sanaag iyo Cayn inaga mid noqon waxaynu jiraan ma jiraan war haddaanaka macruuf goonayna loogu sameeyay iyaka dantooda saawarka garxajis waad maqasheen
oo gacan libaax buurtaa waatay fuuleen 8 qolob ay ka soo baxayna waa aragteen cidda hadda active-ka ugu badan waa dadkii reer Hargeysa waa Sacad Muuse intuna waxay leedahay haddaan arinta khaatuma la dadajin oo la dhamaynin war inana meel ma gaadhayno dadkaana yeelan hodin colaadaan jirinna yeelan umada isku soo jeedin iyaka waxaan u sheegnay maalintii madaxweynaha la doortay 90% dadka Soomaaliya Sanaag iyo Cayn ama bro Somaliland bay ahaayeen ama waa u janjeereen maantana anu tirada ma hayo laakiin 90 iyo wax dhowtoona ma allow 20 ama 30 ay tahay khaladaynu inaku galay eedaynu galay iyo strategic mistakes aynu inaku sameynayna kuma iman warkayga waxaan ku soo ururinayaa qoliyihii niilaas aanoo joogay xildhibaano iyo wasaaradda muddaad ba halka joogteen hawlahaana in badan oo aad ka sii ururiseen waa jira anna in badan aan ururiyay ilaa meesha iyadoo la iska laafiyoonayo looma tegayo lama oranayo saasaanu rabnaa wixii wardaynu rabno arinta aniga iigu weyn teenaba intaynan gaadhin war wixii lagu heshiiyo ama waxa dastuurka ku yaala executive powers madaxtooyada iyo maamulka yaa ka ilaalinaya war horay noo soo martay war heshiisyaa la galay war ina cigaal baa ku tuntay ina cigaal waa madaxweyne waa fardi kuwa hadda joogay golaha wasaaradda madaxweynaha maanta jooga Musabbixi baa ka marxaati kacaya in markaana la idin ka gardaraa sababtaad u tagteen ee Puntland u dhisteena de waxay ahayd annaga halkana lagama rabee waxa yagaanu samaysanayna waray waxaynu la gol tagayno iyo dhaqdhaqaaq iyo hadal war cidaad uga fasax qaadantaayeen jiri oo cidii hadda oranaysa warana ku wada hadaladii baanu daba joognaa oo waxaanu rabnaa in la dadejiyo oo waxna qanciyana la tuso oo gudiye loo sameeyo annaku kuwa yaga waaba samaysanayna cidii hawshan qaban lahayd haday ciidamada tahay haday shaqaalaha dawladda tahay haday maxay tahay maxaakiimta haduu baarlamaanka iyo inta lagu leeyahay horay baarlamaanka miqyaas waxa uu 1960 330 xildhibaan baa waagaa jiray 5 baynu ku lahayn 5 hadii loo bedelo